waa dhawaaq kale oo ka yimid xagga Nairobi waxa ay Kenya warbaahinteedu shaacisay in xukuumadoodu aysan ka qaybgali doonin dhageysiga dacwadda badda ee maxkamadda cadaaladda adduunka ee Britain bilaabanaysa waa dhacdo cusub oo sida muuqata saameyn weyn ku yeelan doonta go'aanada ama qaraarada garyaqaanada maxkamadda cadaaladda adduunka Kenya waxa ay doonaysaa inay qaadato qayb ka mid ah badda Soomaaliya si weyn ayayna labada dawladood isku hayaan laga soo bilaabo 2014 xilligaas oo xukuumadda Soomaaliya ay go'aansatay in lagu kala baxo maxkamadda cadaaladda ka hor inta aan maxkamadda la aadin Soomaaliya waxay isku daday in Kenya la gasho xal diblomaasiyadeed oo qadiyadda lagu xalliyo laba kulan oo qorshuhu ahaa inay ka dhacaan Nairobi iyo Djibouti ayaa fashilmay sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah madaxdii Soomaalida ee xilligaas isku hawlay qadiyaddan Nairobi waxay aad ugu dhagan tahay wada hadal iyo safgarad siyaasadeed arrinta lagu dhameeyo waxayna ku celcelisay marar badan weeraha ku salaysan inay doonayaan siyaasi ay fahmi karaan ama taladu ay ka goodo inuu yimaado Soomaaliya laakiin tallaabooyinkaas oo dhan ayaa u muuqda kuwa oodmay waqtigan midowga Afrika urur goboleedka IGAD dawladaha Mareykanka iyo UK way ku guul dareysaneen dabac siyaasadeed ka helaan xagga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxayna ku dhagan tahay Soomaaliya in kaliya cadaaladda maxkamadda ay ku qanacsan tahay ma haysato Muqdisho damaarada inay guul ka helayso maxkamadda haddana sida muuqata waxa ay qabtaa yadadiile ah in go'aanka adag ee maxkamadda cadaaladeed kaliya ay xoogga saarayaan kaasna ay ku qancayso Soomaalida oo dhan Kenya waxay 3 jeer heshay fursad ah in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda ha yeeshee 13 bishii aynu ka soo gudubnay ee Febraayo sanadkan ayay la kulantay dibir adag oo dhacdadana markii ay maxkamaddu diiday dalabkii Kenya ah in dib loo dhigo xeeraryaha guud ee maxkamadda Kenya waxa uu hoosta xilligaasi ka xariiqay in hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA ay ka xaday qoraal muhiim u ahaa Kenya waxa uu sheegay in dawlad aysan ka jirin Soomaaliya iyo in sidaas oo kale aysan diyaar garow ku filan helin dhanka Kenya sidaas oo ay ahayd Kenya waxay warbaahinteeda iyo dhinacyo Soomaaliya aad u buunbuuniyeen toddobaad ka hor dhacdada ku salaysan in ay Nairobi qaranno culus soo kireysato ay difaaci doonaan hadda isweydiimo badan ayaa ka imaanaya halka ay qarannadii ku dambeeyeen wargeysyada gudaha ee Kenya waxay cadadkoodii hore saaka ku cadeeyeen in Nairobi ay ka baaqsan doonto dhageysiga dacwadda badda ee maxkamadda taasoo muujinaysa mar kale walwalka ay qabtay Nairobi ma jirto cid ilaa hadda si cad u cadeyn karta sheegashada warbaahinta Kenya waxaase la rumaysan yahay inay gadaal ku hayso xigashadoodu qaybaha ugu muhiimsan ee xukuumadda Kenya oo xoogga saaraya arrintan Kenya waxay aad ugu adkaysanaysaa in la raaco safgaradkii ay saxiixiisa ka heshay dawladda ku meel gaarka ahayd kaas oo ay u aragto fursad weyn oo dhankeeda ah laakiin baarlamaankii ku meel gaarka ee xilligaas ayaa si adag u diiday saxiixidii heshiiskaas ku buriyayna cod sharciyada wax kasta oo ku saabsan badda Soomaaliya oo lala galo dal shisheeye ama sokeeye ah Soomaaliya waxay cagta saartay wadiiqada guusha sida muuqata Nairobina waxa ay kaashatay warwareega iyo dibadka joognimada kiiskan taasoo xaqiijinaysa labada dhinac inay aad ugu kala fog yihiin waqti xaadirkan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida ee ku loolamaya kursiga fiila Soomaaliya qaarkooda ay horay macaamilka ula yeelatay Kenya ma jirto ilaa hadda inay cadeeyeen mowqifkooda ku wajahan difaaca dhaxalka Soomaaliyeed waxa ay la kulmayaan waqtigan xasaasi ah waji gabax siyaasadeed oo ka imaanaya ficiladoodii hore toddobaad ka hor warbaahinta Kenya waxay shaacisay in markhaatiyaal ay uga xaniban yihiin Soomaaliya lama garanayo kuwa ay yihiin markhaatiyaashaas hadda waxa ay soo celisay ku dhagnaanshaha doodda heshiiskii ay burisay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ay sheegtay inaan la cuskan karin waxayna Soomaalida u tahay maalin kale oo guuleed ayadoo qaraarna laga sugayo maxkamadda cadaaladda adduunka waxaanu warbixin kale ku eegi doonaa waxyaabaha ka dhigan tallaabada Kenya waxa ay Soomaalida dantu ugu jirto iyo qaraarka maxkamaddu nooca uu noqon karo